dagaalkii bilowday 13 bishan aynu ku guda jirna ee June oo ay Israel ku qaadeen xarumaha nuclear-ka ah ee dawladda Iran hadda waxa uu noqonayaa mid xadka ka sii gudbaya oo xiisadu ay aad u sii balaaranayso maanta oo kaliya waaxda gantaalaha ee dalka Iran ayaa si weyn u beegsaday xarumo kala duwan oo ku yaala nidaamka Israel iyadoo lagu soo warinayo halkaasi in ay dad ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen Israel waxay markaan wajahaysaa mid ka mid ah dagaaladii ugu adkaa tan iyo markii la aasaasay 1948 oo halkaasi dawladda Ingiriiska ay geysay isla markaana Mareykanka iyo dawladaha galbeedku ay ku biritaareen Benjamin Netanyahu oo dagaalkan gulufkiisa qaaday isla markaana naqshadeyntiisa ay la sameeyeen taliyaasha ugu sareeya ciidamada nidaamkaasi hadda waxa uu u muuqdaa in uu badweyn adag tahay inuu ka baxo uu dhaxda u galay saacadii la soo dhaafay ciidamada gantaalaha ee dawladda Iran waxa ay bilaabeen inay maalin cad weeraraan qaybo kamid ah gudaha Israel bartilmaameedyadu saaka waxay ahaayeen halka loo yaqaan Beer Sabca iyo sidoo kale deegaano ay kamid tahay magaalada istiraatiijiga ah ee Haifa ee dekada leh ahna isha dhaqaalaha ee nidaamka Israel magaalada Tel Aviv ayaa wararku sheegayaan in ay xaaladda gantaaluhu ay meelaha gantaaluhu haleeleen ay kamid tahay kooxaha gargaarka degdega ee Israel ayaa lagu soo waramayaa inay qaadeen 5 qof oo ku dhaawacmay gantaaladii ugu dambeeyay ee saaka ay Iran soo tuurtay halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen kuwa ka sii horeeyay oo ciidamada Iiraaniyiintu ay isticmaaleen telefishinka channelka 12aad ee Israel oo xiganaya ilaa 20 kooxood oo dabdamisa ayaa sheegay in 8 dhacdo oo dab ka dhashay gantaalaha la tuuray ay goobahaasi ku dhaceen isla markaana ay ka dhasheen baa la yiri oo ay la tacaaleen waa 8 meel oo gubatay oo gantaaladu ay haleeleen ciidanka Israel waxa ay sheegeen inay ka hortageen 30 diyaaradood oo ah kuwa droniska ah oo ay dawladda Iran u soo dirtay hawada Israel iyadoo hadda nidaamyada difaaca hawada Israa'iiliyiintu ay yihiin kuwa heegana si ay uga hortagaan qatar kasta oo soo wajahi karaysa Iran ayaa hadda u muuqatay inay tahay tan ugu badan ee gantaalaha iyo weerarada ku qaadaysa Israel waxana sidii loo maleynayay Iran ay noqonaysaa mid iska sii bedelaysa sida uu ku dhawaaqay telefishinka Al Jazeera oo xiganaya ila kuwa dagaalka ah iyo waliba qowro ka faallota arrimaha amniga iyo dagaalada bariga dhexe warbaahinta Israel ayaa sidoo kale sheegtay in la barakiciyo baa la yiri in ka badan 60 qof oo deganaa Haifa halka 1300 oo qof oo deganaa Beer Sabca ay ka carareen guryahooda 300 oo qof oo ku noolaa meel ay kamid tahay Tel Avivna hadda waxa ay ku jiraan godadka waa saaka oo kaliya dhacdooyinkan waxna ay muujinayaan in dagaalku ay hadda Iran ay ka go'an tahay inay si balaariso gantaalada ayaa waxay u muuqanayaan kuwa ay Iran sida roobka u fasaxayso markii ay waqti qaadataba taliyaha ciidamada dhulka ee nidaamka ama dawladda Islaamiga ee Iran ninka lagu magacaabo Krimois Haydari ayaa sheegay in ay bilaabeen weerar culus oo ay adeegsanayaan hub casri ah oo ka duwan kii ugu dambeeyay maalmihii la soo dhaafay adeegsanayaan gantaalada la tuuraya ayaa waxay kala yihiin Qaybar iyo Camaad sida ay ku warameen taliyaasha kala duwan ee ciidamada waxa uu inta ku daray taliyahaasi inay adeegsanayaan diyaarado isbidaamina oo drones si loo burburiyo goobaha istiraatiijiga ah oo ku yaala Israel ilaalada kacaanku Iran ayaa sidoo kale sheegay in ay mar kale duqeyn xoogan oo gantaalaha isku diyaarinayaan saacadaha soo socda qoraal ka soo baxay militariga Iran ayaa waxa lagu yiri waxaan sii wadi doonaa weerarada saxda ah iyo kuwa xanuunka badan ee ka dhanka ah bartilmaameedyada muhiimka ah ee nidaamka Israel ilaa iyo aan ka baabi'ino oo jiritaankooda uu meesha ka baxo intaasi waxay ku dareen in weerarada ay weerareen xarunta sirdoonka militariga ah ee Israel ee Amman loo yaqaano iyo xarunta qorsheynta dilalkii laga soo abaabulay Israel iyo waliba loo geystay taliyaasha iyo qubaradii sare ee dalkaasi Iran ay ku waayeen dagaalada xarunta Amman oo ah hay'adda sirdoonka militariga Israel ayaa la sheegay in qorshaha dejinta istiraatiijiyadaasi ay lahayd sida ay tilmaamayaan mas'uuliyiinta sare ee Rasavi uu ka mid yahay oo ka tirsan taliska sare ee ciidamada Iran booliska Iran ayaa sidoo kale sheegay inay xireen saraakiil ka tirsan Mossad oo lagu eedeeyay inay ku howlanaayeen samaynta iyo tijaabinta walxaha qarxa
gudaha magaalada loo yaqaan Karaj oo ku taala gudaha aan iraahdo Iran. dhinaca kale Israa'iil ayaa sheegtay inay maanta dileen taliyihii taliska dhexe ee ciidamada guutada loo yaqaan Khatamul Anbiya oo kamid ah kuwa sida gaarka isugu dabarida kana shaqeeya qorshooyinka iyo waliba dagaalka haatan ay ku jirto dowladda Iran. ninkan oo lagu magacaabo Ali Shadamani ayaa waxa lagu soo waramayaa in uu ku geeriyooday duqeyn Israa'iil ay ku geysatay bartamaha Tehran oo ah saldhigga ciidamadaasi ay deganaayeen. Israa'iil waxay sheegtay in ciidamada cirka Israa'iil ay beegsadeen xarun ku taala Tehran oo ay ku dileen Shadamani iyo sidoo kale nin kale oo ku dhawaa Ayatollah Ali Khamenei oo ah murshidka ugu sareeya ee dowladda Iran iyo sidoo kale madaxa cutubka Baleeri Khatamul Anbiya oo qaabilsan weerarada degdega ah iyo howlgallada militariga. Israa'iil waxay sidoo kale sheegtay in duqeymo xooggan oo cirka ay ka fuliyeen galbeedka Iran halkaas oo ay ku burburiyeen goobo kayd u ahaa gantaalaha iyo droniska lagu weeraray qaybo kala duwan oo kamid ah Haifa iyo Tel Aviv. wakaaladda wararka Israa'iil ayaa sheegtay in bartamaha subaxnimadii maanta lagu burburiyay diyaarado drone oo lagu arkay qaybo kamid ah koonfurta Golan oo ah dhulka Israa'iil ee xoogga ku haysatay Syria. waxay intaa ku dareen in ciidamada Israa'iil ay sheegeen inay burburiyeen ku dhawaad kala bar kamid ah goobaha gantaalaha laga soo tuuro ee Iran ay leedahay sida ay dooda u dhigeen. laakiin arrimahaas oo dhan waxa ku yimid dowladda Iran oo ku tilmaantay hadal malagi galay oo aan waxba ka jirin. dowladda Shiinaha ayaa markaa diblomaasiyadda eego ku dhawaaqday maanta in ay suuragal ahayn dagaalada inay sii socdaan oo ay sii baahan isla markaana loo baahan yahay in Israa'iil gacanta laga qabto aysan lagu sii eegan karin xaaladda gobolka ay ku sugan yihiin. hadalka ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee Beijing ayaa waxa uu noqonayaa mid ka hor imaanaya dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan wadamada galbeedka waxaana hadalkan uu saameyn u yahay ama jawaab daba socota u yahay hadalkii xalay Trump uu jeediyay ee ahaa in la isaga cararo magaalada Tehran iyadoo laga baqrin qabay in ay duqeeyaan Mareykanku magaaladaasi dagaalkan ay ku soo biiraan. Shiinaha ayaa hore u sheegay in siyaasad ahaan iyo military ahaanba uu taageerayo Iran marka la fiiriyo dagaalka ka socda gobolka Bariga Dhexe. wasiirka amuraha dibadda ee dalka Iran Abbas Araghchi ayaa goor dhaweyd sheegay in ay nidaamka Israa'iil ay duqeeyeen kaydad shidaal oo ku yaalay gacanka taas oo muujinaysa in ujeedadu ay tahay ay ka damacsan yihiin dagaalka inuu sii baaho oo ay dadku galaan xaalad aad u adag. waxa uu ku tilmaamay dowladdiisa inay isxakameynayso laakiin Israa'iil ay u muuqato in xayndaab kasta oo cas oo la dhiga ay ka tilaabayso taasi oo si weyn uga hor imaanaysa nabadgelyada gobolka. shacabka dalka Iran ayaa la soo baxay qoryaha iyagoo taageeraya ciidamada wadankooda waxana ay baarayaan guri walba iyo goob kasta oo gaadiidku ay marayaan iyo goobaha dadku ay isugu yimaadaan. ujeedaduna waxay tahay in la soo qabto indhaha iyo waliba dadka u shaqeynaya muusaadka Israa'iil ee qaybta ka dagaalka. shacabka Iraaniyiinta ayaa markan doonaya si ay u nabad galaan inay ka hortagaan tallaabo kasta oo ay qaadi karaan kooxdaasi. maanta sirdoonka wadanka Iran ayaa ku dhawaaqay inay qabteen qalab iyo hub la sheegay in ay lahaayeen kooxaha sirdoonka Mossad ee ka dhex kalluumaysanaya gudahooda isla markaana lagu soo qabtay dadka arrimahaasi ka shaqeynayay. hadda sirdoonka Mossad ee gudaha Iran ku sugan waxay u muuqanayaan kuwo la kala firdhiyay oo tilaabooyin ba ay qaadi lahaayeen.